بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله وخيرته من خلقه صلوات ربي وأزكى تسليماته عليه ترك لنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وسلك السعداء من أمته على نهجه الغويم وضل عنه الأشقياء وبعد والله ليال انتني لسعتي درسيني فقه السيرة waxay noo soo dhamaaday qaybtii ugu horeysay ee fiqh siira halkana waxaan nooga bilaabanayaa casharkeennii labaad ee kitaabkeennii fiqh siira haddaba waxaanu bartamaha uga jirnay walaalayaal dhalashadii nabigeena maxamed salawaatu ullaahi wa askaa tasliimaatihi calayh daba nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxa uu dhashay isaga oo agoon ah ayuu dhashay nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay ayaana sidaas u doortay inuu sidaa nabigu u dhasho calayhi salaatu wasalaam sababtoo ah dhinacyo fara badan markii laga eego nabigeena calayhi salaatu wasalaam agoonnimada uu ku dhashay ayaa waxay taasi tahay mucjizo gooni ah maxaa yeelay hadduu aabbihiis noolaan lahaa oo aabbihiis uu soo tarbiyeyn lahaa oo aabbihiis uu soo barbaarin lahaa waxa dadku ay isdhihi lahaayeen akhlaaqdan fiican ee nabiga ka muuqata waa akhlaaq waalidiintiisu ay ku tarbiyeeyeen ama aabbihiisaa sida u barbaariyey maahana wax ilaahay xaggiisa ka socda maba ahanay dadku isdhihi lahaayeen laakiin nabigeena calayhi salaatu wasalaam isagoo wax odayoo soo barbaariyey aysan jirin xataa hooyadiis isagoo caqli sidaas aan lahayn ay iska geeriyootay haddana lagu arkay akhlaaqdan cajiibka ah ee hufan oo nadiifka ah taasi waxay deliil u tahay in xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala laga barbaarinayey sida nabigeennuba calayhi salaatu wasalaam xadiis uu ku yidhi addabanii rabbii fa axsana ta'diibii rabbigay ayaa edab isiiyey wuxuuna rabbigay wanaajiyey aadaabtayda ayuu yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam haddaba nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa waajib muqadas ah walaalayaal muslimiintu in ay taariikhdiisa iyo noloshiisaba si aad u wanaagsan ay ula socdaan ayna u bartaan maxaa yeelay nabiga naftiisa ayay ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam inuu dadka isbari jiray waxaana taa deliil u ah xadiiskii uu warinayey imaamu tirmidi oo sunankiisa uu ku wariyey ee nabigeena calayhi salaatu wasalaam qaama cala almimbar faqaala man ana faqaaluu anta rasuulu llaahi calayka asalaam faqaala ana muxamed bnu cabdillaahi bni cabdilmuطalib ina allaha khalaqa alkhalq ثuma jacalahum firqatayn fajacalanii fii khayrihim firqa ثuma jacalahum qabaa'il fajacalanii fii khayrihim qabiila ثuma jacalahum buyuuta fajacalanii fii khayrihim beyta wa khayrihim nasaba xadiiskaas imaamu tirmidi ayaa sunankiisa ku wariyey xadiiskaasi wuxuu inoo sheegi walaalayaal nabigeenu calayhi salaatu wasalaam inuu mimbarka ku istaagay markaasna uu yidhi aniga may taqaanaan yaan ahay saxaabadii waxay yidhaaheen waxaa tahay rasuulka ilaahay allaha ku nabadgeliye markaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam anigu waxaan ahay muxamed aabbahayna waxaa la odhan jiray cabdullaahi awowgeyna waxaa la odhan jiray cabdulmuطalib haddaba halkaas waxaa tusaale ah ka ah walaalayaal in nabigeennu calayhi salaatu wasalaam isaga naftiisa aftiriskiisa uu dadka muslimiinta ah uu bari jiray intuu masjidka uu ka dhex istaago waxaa marka muhim ah ee culamaauddiinka jooga waddanka soomaaliya iyo dibaddaba muhim ku ah in ay masaajidda ka istaagaan iyo guryaha iyo xaafadaha iyo shawaaricda meel walba ay ka istaagaan iyagoo baraaya nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam abtirsigiisii carruurtana ku barbaarinaya si ay xidhiir toos ay ula yeeshaan nabigeenna moxameda salawaatu ullahi wa askaa tasliimaatihi calayh maxaa yeelay qofka haddaadan aqoon u lahayn waxa uu yahay iyo akhlaaqdiisaba ma jeclaan kartid maxaa yeelay qofka shayga markii la jeclaado waa marka lagaaga sheekeeyo oo lagu yidhaaho saasuu ahaa saasuu ahaa saasuu ahaa markii lagu yidhaaho waxaa kugu beermaysa dareen ah qofkaana inuu yahay qof qaali ah haddaba nabiga calayhi salaatu wasalaam iyadoon lagaaga sheekaynin oqoonna aadan u yeelan mana raaci kartid mana jeclaan kartid maxaa yeelay waxaad ku raacday waxaad ku jeclaato maba taqaanba iyadoon lagaaga sheekaynin haddaba marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa xadiiskaa tirmidi wuxuu ku yidhi ina allaha khalaqa alkhalqa ilaahay wuxuu abuuray
makhluuqaadka markuu abuuray ثuma jacalahum firqatayn makhluuqaadkii ilaahay wuxuu ka dhigay laba firqo ayuu ilaahay ka dhigay markaasuu wuxuu iga dhigay firqada markaas ugu khayrka badan firqooyinka ayuu iga dhigay ilaahay subxaanahu wa tacaala markaas haddana wuxuu ka dhigay ilaahay subxaanahu wa tacaala makhluuqaadkii qabiilooyin fara badan ayuu ka dhigay wuxuuna ilaahay iga yeelay qabiiladii ugu sharafta badnayd ee ugu qiimaha badnayd ayuu alla iga dhaliyey subxaanahu wa tacaala haddana markaa kabacdi wuxuu ilaahay ka yeelay bulshada ama makhluuqa uu ka yeelay maaragtaa guryo ayuu ka dhigay wuxuuna ilaahay iga soo saaray gurigii makhluuqaadka ugu khayrka badnaa ayuu iga soo saaray dadka ilaahay wuxuu ka dhigay nafyaal kala duduwan wuxuuna ilaahay iga dhigay naftii ugu khayrka badneed adduunka iyo makhluuqaadkiisao dhan ugu khayr badnaa ayuu ilaahay iga dhigay buu yidhi nabigana calayhi salaatu wasalaam haddaba nebiga sidaa ahay walaalayaal waxaa loo baahan yahay muslimiintu inay jeclaadaan oo naftooda iyo maalkooda iyo waalidiintooda iyo ahladoodo dhanba iyo qabiilkoodoo dhan ay ka jeclaadaan nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam wax walbana ay ka hormariyaan maxaa yeelay nabigana calayhi salaatu wasalaam isaga ayaa dadka muslimiinta ah sidaas ku boorriyey in la jeclaado wuxuuna yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam laa yu'minu axadukum xataa akuuna axabba ilayhi min waalidihi wa waladihi waannaasi ajmaciin qof adinka idinka mid ah ilaahay ma uusan rumayn ilaa uu aniga iga jeclaado naftiisa iyo waalidiintiisa iyo dadkoo dhanba aniga uu igu jeclaado ma rumayn buu yidhi haddaba nabiga calayhi salaatu wasalaam iimaan ayuu ka anfiyey wuxuuna sheegay inuusan iimaan lahayn qofkii nebi moxamed aan jeclaanin sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam haddaba jacaylka nabiga calayhi salaatu wasalaam waa qayb ka mida iimaankaaga qof walboo muslimow sidaa u ogaaw oo sidaa u dareensanaaw hadda ka hor sayidinaa cumar ayaa nabigana calayhi salaatu wasalaam ku yidhi rasuul ilaahayow waan ku jecelahay inta aan naftayda ahayn waa kaa jecelahay naftayda intii aan ahayn waan kaa jecelahay buu yidhi markaas ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi weli jacaylkii la doonaayey weli kuma dhammaystirmin cumarow markaasaa sayidinaa cumar isla markiiba wuxuu sameeyey taraqi oo sare uu u kacayoo wuxuu yidhi xataa naftayda waan kaa jecelahay naftayda xataa maaragtahay adiga ayaan ku jecelahay buu yidhi naftaydana hoos ayaan u dhigay markaasuu al'aana yaa cumar ayuu yidhi nabigana calayhi salaatu wasalaam haddeer ayaa cumarow iimaankaagii buuxsamay haddeer ayaad noqotay qof wanaagsan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala iimaankiisa uu sare u qaaday haddaba nabiga calayhi salaatu wasalaam walaalayaal sidaas ayaa loo baahan yahay qof walba in xataa naftiisa iyo nabiga ay jeclaato ayaa loo baahan yahay haddaba nabigana calayhi salaatu wasalaam xilliyadaas uu dhalanayey waxaa carabta ka dhex jiray diintii nebiyullaahi ibraahim oo markaas gabaawsi ku ah maxaa yeelay waxaa qof walba uu ogsoon yahay carabtu inay yihiin carruurtii nebi ismaaciil inay yihiin ayaa la dareensan yahay haddaba diintii nebiyullaahi ibraahim iyo nebiyullaahi ismaaciil ayaa awowayaashoodii hore ay ka soo gaareen marka wax yar oo magacuun ah oo haraadi ah ayaa ku dhex haray carabta oo diintii nebiyullaahi ibraahim ka mid ah waxyaalaha ku dhex haray ayaa waxaa ka mid ahaa xajka iyo cumraysiga iyo tawxiidka laa ilaaha illa allahu ayaa ku dhex haray wakhtiba wakhtiga ka sii dambeeya intaas xataa way ka sii baaba'aysa ka bacdi iyagoo tawxiidkii haysta oo diintii nebi ibraahim laa ilaaha ila allahu ka haysta ayaa waxaa soo galay shirki iyo gaalnimo waxayna caado ka dhigteen inay asnaamta ay caabudaan waxayna ka leexdeen manhajkii toosnaa oo uu ku socon jiray nebiyullaahi ibraahim waxaana siirada islaamku ay sheegtaa qofkii ugu horreeyey oo carabta gaalnimada soo dhex geliya ayaa wuxuu ahaa ninkii la odhan jiray camru bnu luxay ninkaas camru bnu luxayin ah ayaa asnaamta abaabulay sida loo caabudi lahaa ibnu isxaaq ayaa wuxuu ka wariyey moxamed ibnu ibraahim ibnu alxaaris attaymi ninkii la dhihi jiray abaa saalixu samaan
inuu uga sheekeeyey abu hurayra hadal uu ka maqlay wuxuu yidhi abu hurayra rasuulka ayaan ka maqlay sala allahu calayhi wasalam isagoo dhahaya nin la yidhaha aksam isagoo ku dhahaya aksamow waxaan arkay camru bnu luxayin ninkii la dhihi jiray isagoo naarta mindhicirihiisa ku jiidaya ayaan arkay buu yidhi oo lay tusay nabigu calayhi salaatu wasalaam markaas ayaa waxaa la yidhaha ninkan la yidhaha camru bnu luxayin asnaamta qaabka uu ku alifay jasiiratulcarabna uu uga dhex beeray sababteedu waxay ahayd baa la yidhaahaa camru bnu luxayin ayaa wuxuu ka safray magaalada maka ee barakaysan wuxuuna u safray carriga shaam markuu soo galay meesha la yidhaaho ma'aaba oo ka mid a dhulkii laysku odhan jiray balqaa markaasna waxaa ka talin jiray niman la yidhaha camaaliiq ayaa meeshaas ka talin jiray wuxuu meeshaa ku arkay ma'aaba la yidhaaho asnaam ay dadku ay u sujuudahayaan ay caabudahayaan ayuu halkaa ku arkay camru bnu luxay markaasuu wuxuu ku yidhi maa haadihi alasnaam allatii araakum tacbuduun war heedhahaya asnaamtan aan idinku arkaayo ood caabudaysaan maxay yihiin markaasay waxay yidhaaheen haadihi asnaam nacbuduhaa nastandiruhaa fatumdirunaa wa nastansiruhaa fatansurunaa faqaala lahum afalaa tucduunanii minhaa sanaman faasiira bihi ilaa ardi alcarab fayacbuduuh faacdowhu sanaman yuqaalu lahu hubal faqadima bihi maka fanasabah wa amara annaasa bicibaadati wa tacdiimih nimankaas markuu camru bnu luxayin meesha ku arkay ayuu yidhi war maxay tahay asnaamtan aad caabudaysaan markaasay waxay yidhaaheen tani waa asnaam innagu maaragtaahay aan ka roob dalbayno oo xilliga maaragtaahay xilliga roobabka aan weyno oo roob aanu weyno ayaannu maaragtaahay aanu weydiisannaa asnaamtani inay roob noo keenaan markaannu doonayno istinsaar markaannu doonayno oo in naloo hiiliyo aannu doonaynana iyaga ayaannu gargaar weydiisannaaho asnaamtan ayaa noo hiilisa asnaamtan ayaa noo hiilisa markaannu doonayno in maaragtaahay naloo gargaaro wuxuu ku yidhi iyaga markaas afalaa tucduunanii minhaa sanaman fa asiira bihi ilaa ardi alcarab fayacbuduuh war heedhahaya ma isiisaan sanamkaas oo aan ugu socdaalo dhulka carabta oo carabtu iyaguna si ay ilaah uga dhigtaan oo iyaguna ay u caabudaan war heedha hal sanam ma isiisaan oo carabta aan u geeyo oo carabtu ay caabudaan markaasay waxay soo siiyeen nimankii camru bnu luxayin hal sanam ayay soo siiyeen sanamkaasoo ay ugu magac dareen hubal wuu soo qaatay sanamkaas wuxuuna keenay magaaladii maka ee barakaysnayd ee maka almukarama meel ayuu ka qotomiyey sanamkaas markaasuu dadkii isugu yeedhay wuxuuna yidhi kan caabuda weyneeya oo qiimeeya waa ilaaha roobka keena una sujuuda ayuu ku yidhi haddaba sidaas ayaa jasiiratulcarab ay uga dhex faaftay cibaadada asnaamta waxaana halkaa ku faafay shirki lixaad leh ayaa ku faafay jasiiratulcarab sidaas ayay carabtii waxay uga xuub siibteen intii yareedoo haraadiga ahayd ee uga hartay diintii nebi ibraahim iyo diintii nebi ismaaciil waxayna ku beddel qaateen diintii nebi ibraahim iyo diintii nebi ismaaciil in ay caabudaan hubal iyo asnaam la mida waxyaalaha marka ku kallifay carabta inay maaragtaahay asnaamtaas ay ilaah ka dhigtaan ayaa waxaa ka mid ahaa iguna weynaa aljahlu waalummiya wata'ahuru biman kaana xawlahum min ashtaati alqabaa'il waalumam waxyaalaha macnaha aad ugu kallifaayey ayaa waxaa ka mid ahaa jahliga jaahilnimada ayaa ka mid ahayd iyo umminimada iyo qabiilooyinkii hareerahooda degganaa maadaama diin ka celinaysa ee xaqa iyo baadilka u kala sheegaysa markaas aysan haysanin qabiilooyinkaas marka agaarkooda jooga waxyaalaha ay ku dhaqmahayaan oo ay samaynahayaan
ayay iyagiina isaga kaceen oo iska sameeyeen. laakiin waxaa jiray dad maca daalika ayagu iska heestay diintii nebiyullaahi ibraahim ku dhegganaay ayaa jiray oo markaas dhibsanaysay waxyaalaha carabtu ay gadaal kala timid ee asnaamta iyo ra'yiga iyo fikradaha khaldan ah. waxaa ka mid ahaa dadka asnaamta cibaadadoodu aad u dhibsaday oo aad ay ula xumayd ninkii la odhan jiray qus bnu saacida alayaadi iyo ninkii la odhan jiray buxayra araahib. haddaba markaas dadkii carabta ahaa ninkaas camru bnu luxayin ayaa aad u lumiyey. waxaa markaa diintii nebi ibraahim uga haray iyagoo asnaamtaas caabudaya waxyaalaha ay ku tilmaamaan xajka iyo cumrada iyo barakaysiga magaalada kacbada inay barakaystaan oy u aaminsan yihiin shay qaali ah oo barako leh inay kacbadu tahay. waxyaalahaasaa uga haray diintii nebiyullaahi ibraahim iyo nebiyullaahi ismaaciil taasaa uga hartay. marka waxaa ka mid ahaa waxyaalaha uga haray dawaafka iyo xajka iyo wuquufka carafo iyo xoolaha oo sadaqa iyagoo ula jeeda ay dhihi jireen waanu gowracaynaa. waxyaalahaas oo dhan waxay ahaayeen sharciyo ay isku dhaqaan ayay ahaayeen kuna ay dhaqmaan. laakiin waxaasoo dhan magacuyeel weeye uun maahane ma ahayn wax ku salaysan diinta islaamka. maxaa yeelay marka ay xajinayaan oo kale iyagoo qaaqaawan ayay xajiyi jireen. waxyaalaha ay ku andacoodaan ayaana waxaa ka mid ahayd inay yidhaahaan dhar innagu ilaahay aanu ku caasinnay kacbadiisa kuma dawaafayno ayay odhan jireen. xataa marka ay talbiyada samaynayaan oo ay xajinayaan carabtii la odhan jiray kinaana iyo quraysh waxay dhihi jireen labayk allaahuma labayk labayka laa shariik ilaa shariikun huwa laka tamlikuh wamaa malak. waxay dhihi jireen ilaahow ilaah kale ma jiro ilaa mid adiga shirko kula ah oo adigu aad iska leedahay ood milkigiisa iyo majarihiisa adigu aad hayso maahane. haddaba marka sidaas ayaa maaragtaahay carabtii ay uga marin habaabeen diintii nebiyullaahi ibraahim iyo diintii nebiyullaahi ismaaciil ay ula yimaadeen. dhibaatooyinkaas faraha badan iyadoo lagu jiro ayaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu caalamkan u soo saaray. waa sida ilaahay uu qur'aankiisa uu ku yidhi laqad manna allaahu cala almu'miniina id bacata fiihim rasuulan min anfusihim yatluu calayhim aayaatih wa yusakiihim wa yucallimuhum alkitaaba waalxikma wain kaanuu min qablu la fii dalaalin mubiin. wuxuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala mu'miniinta rabbi waa galladaystay. rabbi mu'miniinta waa galladaystay maxaa yeelay wuxuu ka soo dhex saaray rasuul iyaga ka mid ah ayuu ka soo dhex saaray. rasuulkaasoo aayadaha ku dul akhrinaya korkooda oo dahirahaya oo xumaatada iyo dembiyada ka nadiifinaya ayuu ka soo dhex saaray dhexdoodii. kitaabka iyo xigmadana baraya. ilaahay wuxuu subxaanahu wa tacaala uu yidhi wain kaanuu min qablu la fii dalaalin mubiin. rasuulkaas hortiis dadku waxay ku sugnaayeen baadhi iska cad ayuu yidhi eebbe subxaanahu wa tacaala. haddaba nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iyadoo bulshada gaar ahaan jasiiratu alcarab afkaartaas khaldan iyo diimahaas khaldan ay ka jiraan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka soo dhex saaray. marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam dhibaatooyin aad u baaxad weyn ayuu maaragtaahay kala kulmay xilligii uu diinta ku faafinayey caalamkan innagu aanu ku dhex noolnahay. sababtoo ah waxyaalaha dhibaatada sii kallifayey oo sii ballaarinaya ayaa waxaa ka mid ahaa rusushii iyo ambiyadii ka horraysay nabigeenna moxameda salawaatu ullaahi wa askaa tasliimaatihi calayh. dacwadoodu waxay ahayd dacwo ku kooban qoomka iyo qowmiyadaha markaas iyagu ay ka dhasheen ayaa dacwaadkoodu ay ku koobnayd. maxaa yeelay rusushii ka horraysay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam
waxaa loo soo diri jiray qowmiyadaha ay ka dhasheen bis ee caalamka daafihiisa oo dhan lama odhan jirin mas-uul ayaad ka tihiin sida ilaahayba qur'aankiisa uu ku yidhi wa ilaa hamuuda akhaahum saalixa reer hamuud ilaahay wuxuu u diray saalix oo iyaga ka dhashay wa ilaa caadin akhaahum huuda reer caadna ilaahay wuxuu u diray walaalkoodii iyaga ka dhashay ee la odhan jiray huud wa ilaa madyana akhaahum shucayba madyanna waxaanu u dirnay walaalkoodii iyaga ka dhashay ee la odhan jiray shucayb walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmih falabisa fiihim alfa sanatin ilaa 50 caama waxaanu u dirnay nebi nuuxna qoomkii uu ka dhashay ayaan isagana u dirnay wuxuuna qoomkaas ku nagaaday dhexdooda 1,000 sano konton haddii laga reebo 1,000 sano ayuu ku nagaaday waa 950 sano ayuu diinta ku faafin jiray marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha maaragtaahay dhibaatadiisa baaxadda ka dhigay waxay ahayd isaga in caalamka oo dhan loo soo diray balse aan loo soo dirin qabiilka iyo qoyska uu ka dhashay kale ah aan loo soo dirin sida ilaahay buu yidhi subxaanahu wa tacaala tabaaraka aladii nazala alfurqaana calaa cabdih liyakuuna lilcaalamiina nadiira waxaa xumaato oo dhan ka fogaaday allihii addoonkiisa maaragtaahay ku soo dejiyey qur'aanka si uu caalamka oo dhan uu u digo oo diinta uu gaarsiiyo caalamka daafihiisa dhammaantiisba wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin kuma aanan soo dirin nebi moxamedow sala allahu calayhi wasalam in caalamka aad u tahay naxariis mooye daba caalamka oo dhan ayaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam loo soo diray ee ma ahayn dacwadiisu mid ku kooban qoys ama maaragtay jasiirado ku kooban ma ahayn sida ambiyadii isaga ka horraysay ay dacwaadkoodu ay ahaan jireen kuwa ku kooban marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam walaalayaal waxa uu dhashay bisha la yidhaaho rabiicu alawal 12 maalin isniinah ayuu nabigu dhashay calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaahaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markii ay uurka uu ku jiray oo siiradu ay qortaa macnaa hooyadiis waxa ay sheegtay waxyaalaha haweenku ay arkaan oo dhibaatada uurka ay ku dhibtoodaan oo ay ku rafaadaan in ilaahay subxaanahu wa tacaala iyada uusan tusinin balse uurkeedu uu ahaa uur maaragtaahay wax dhibaato ah aysan kala kulmaynin xataa markii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu dhalanayey islaamuhu waxay rafaad ay kala kulmaan intooda badan foosha nabigeenna calayhi salaatu wasalaam hooyadii aamina bintu wahbi waxa ay sheegtay inaysan maaragtaahay wax dhibaato ah aysan kala kulmin dhaliddii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa siiradu ay sheegtaa nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu dhashay isaga oo korkiisa dhani ay buuxiyeen iftiin iyo nuur marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markuu dhashay waxaa aad ugu farxay abulahab ayaa aad ugu farxay iyo nabiga awowgii calayhi salaatu wasalaam ee la odhan jiray cabdulmudalib aad ayuu u farxay sababtoo ah wiilkiisii ayaa dhalay oo wax kale aan ka tegin ilaa nebi moxamed maahane calayhi salaatu wasalaam marka aad ayay maaragtaahay awowgii iyo adeeradiisba ay ugu farxeen dhalashada nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xataa cabdulmudalib waxa weeye inta nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uusan maaragtaahay dhalanin wuxuu mar walbaba uu hamiyi jiray oo uu tamanin jiray in maaragtaahay wiilkiisii dhintay ee cabdullaahi oo nabiga aabbihii ahaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala wax uu uga reebo owlaadah ayuu tamanin jiray oo uu jeclaan jiray mar walbaba cabdulmudalib daba nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markii uu dhashay waxa ku dhacay caalamkan isbeddel la yaqaano ayaa ku dhacay tusaale ahaan isbeddelada la yaqaano waxaa ka mid ah dab weyn ee laga caabudi jiray dhulka faris loo yiqiinay ilaa dhowr kun oo sano shidnaan jiray dabkaasi wuu demey markii nabigeennu dhashay calayhi salaatu wasalaam iyadoo markaas xafiiskii ninkii la dhihi jiray kisra oo asnaamta faraha badan ee yaalleenna ay daateen oo xafiiskii iyo asnaamtii kulli ay wada daateen markii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam adduunka uu ku soo biray oo uu dhashay
taasoo culimmada siiradu ay u yaqaanaan waxyaalahaas magaca la yidhaaho irhaasaad ayay u yaqaanaan irhaasaadkaas oo ah waxyaalo cajaa'ibah ee la arkay dhalashadii nabigeenna moxameda sala allahu calayhi wasalam ee caalamkan gudihiisa lagu arkay waxaa kaloo ka mid ah marka dabkaas waxaa la yidhaha intaasoo kunoo sano la caabudahayey habeenkaas ayuu baktiyey oo uu demay guud ahaantiisba lana waayey dibna looma caabudin oo xataa nimankii dabka caabudi jiray oo majuusiyiinta ahaa waxay isku dayeen dabkii inay dib u soo celiyaan oo ay soo nooleeyaan laakiin kuma aysan guulaysan waxaa ka mid ahaa irhaasaadka la arkay markii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu dhashay oo caalamkan uu ku soo biiray nuur weyn ayaa ka kacay magaalada maka ee nabigu uu ku dhashay calayhi salaatu wasalaam nuurkaasna waxaa laga arkay ilaa dhulalka shaam iyo busra dad geel ku ilaalinayay dhulkan urdun iyo suuriya iyo maraayey carab reer baadiyaha geel wadatay nuurkii ayay arkeen bul wax hal mar yidhi oo iftiimay ayagoo geel wata ayay arkeen kabacdi nimankaasi markii ay soo sheegeen oo ay yidhaaheen nuurkaas ayaannu aragnay ee maxaa ka dhacay magaalada maka gudaheeda ayaa dad weynihii magaalada maka joogay ay u sheegeen oo yidhaaheen islaantan la yidhaaho aamina bintu wahbi ayaa dhashay wiil dhashay marka nuurkaa nabiga calayhi salaatu wasalaam la soo baxay ayaa maaragtaahay wuxuu ahaa nuur adduunka iyo caalamka daafihiisa meel walbaba maaragtaahay laga arkay ee laga daawanayey ayuu ahaa dhammaan waxyaalahaasoo dhan ayaa culimmada islaamku waxay ku tilmaamaan irhaasaad loogu tala galay in maaragtaahay caalamku uu dareemo in nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam uu caalamka ku soo biiray oo uu dhashay haddaba walaalayaal waxaa la dooni oo dadka muslimiinta ah guud ahaanba laga dooni inay siirada sidaas ay mar walbaba maaragtaahay ay ula socdaan siirada waxa loo aqrinayana ma aha sida dhowr goorba aannu soo sheegnay in qofku dhegaysto kaliya uu noqdo kabacdina uu yidhaaho sida idaacadaha intuu u dhegaysto meeshiisii uu ka sii wato dhaqankiisa looma baahna waxaa loo baahan yahay siiradu inay beddesho dhaqankaaga iyo usluubkaaga iyo maaragtaahay hadyigii nidaamkii aad ku socotay oo dhan aad ka dhigto qorshahaaga qorshe nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam uu raalli ka yahay ilaahayna uu raalli kaaga yahay subxaanahu wa tacaala waa inaad ka dhigto taas unbaa maaragtahay waxaad ku noqon kartaa qof maaragtaahay muslim ah oo nadiif ah ee nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam jecel ayaad ku noqon kartaa marka in sha allahu tacaala ilaahay hadduu yidhaaho casharadeenna kale ayaannu ku faahfaahinaynaa macnaha wilaadada nabigeenna ayaa noogu xigi doonta in sha allahu tacaala qaabka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markuu dhashay reerka uu ka nuugay iyo gabadhii ku guulaysatay nuujinta naaskeeda ay nuujiso nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo waxyaalihii barakaadka ahaa ee mucjizooyinka ahaa ee ay ku aragtay gabadhii nabiga nuujinaysay calayhi salaatu wasalaam iyo qoyskii dhammaa sida uu nabiga ugu barakoobay calayhi salaatu wasalaam ayaannu maaragtaahay walaalayaal gadaal casharadeenna dambe aanu ku qaadan doonaa haadaa wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakatu